kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel walba joogtaan waxaad leenahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. haddaba barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa kulamadii shalay iyo habeen hore dhacay oo markaasi loo ciyaarayay semifinalka si loogu soo bixi lahaa ama quarter finalka sidaad u taqaanaanba. haddaba quarter finalka ayaa waxaa wada ciyaareen lugtii ugu horeysay Real Madrid iyo weliba kooxda Arsenal, taasi oo natiijo aan lama filaan ah ama aan la filanaynin ba ay ka soo baxday halkaasi oo Arsenal ay maalmaha ugu dambeeyaba ay u muuqatay si durdur ah in markaasi ay ugu durdurinayso kooxihii kaga soo horbaxa UEFA Champions League kulamada isku aadkooda. haddaba PSV ayaa sidii la ogsoonaaba ay ahayd kooxda Arsenal lugta hore inay markaasi ku soo dubatay 7 gool iyo 1 oo taay u muuqatayba in lugta horeba ay kusoo kala baxeen garoonka ay markaasi PSV ku dheelay dalkaasi Holland. haddaba sidoo kale inta kulankan ayaa markaasi waxa uu muuqday ama dadka inta badan ba ay saadaalinayeen ay ahayd in Real Madrid ay tahay boqorada championka oo ay markaasi haysato 15 champion oo ay markaasi leesdahayay kooxda Arsenal ay ku durduri doontaan maadaama Mbappe iyo weliba Vinicius Junior iyo Rodrigo afka hore u ciyaarayaan sida qadka dhaxana ay u ciyaarayeen ahayd weliba Luka Modric iyo Camavinga ay ciyaarta ayaa markaasi waxay u muuqatay dadka caalamka oo idilba in Real markaasi ay ku badin doonto weliba goolo aan markaasi la tiri kareynin. laakiinse dhanka kale ay u rogmatay markii kubadda cagta ay markaasi garoonka la soo galay oo laga ciyaarayay weliba garoonka Emirates Stadium ee dalkaasi England oo ay Arsenal marti loo ahaa. haddaba Arsenal ayaa ciyaarta rogtay dadka kaambidii ugu horeysay ama lugta ugu horeysay ee ciyaarta ayaa waxa ay ku soo idlaatay eber walow ay kooxda Arsenal markaasi ay xagga natiijo ahaan ama fursadaha ugu badnaa ay soo mareen, laakiinse ay u muuqatay inay ka faa'iideysan weyday kooxda Arsenal oo markaasi loo dareemayay in kooxda Arsenal ay markaasi haysato gool la'aan xaggeeda. haddaba lugta labaad markii la soo laabtay ayaa dadku inta badan waxay isdhahayeen 70 markii la gaaro kooxda Real Madrid ayaa markaasi sharaxeeda bilaabato iyadoo markaasi gurbaankeeda isku tumato kooxaha ka soo horjeedana markaasi ay ku aruuriso. haddaba meeshii laga sugayay in kooxda Arsenal la garaaco ayaa iyadu 70kiiba waxay ku bilowday 8 markii ay ahayd gool Bluson oo cajiib ah u dhaliyay freekigas ama bluesonkaasi u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Declan Rice oo markaasi kooxda Arsenal ay 2 sano ka hor lacag aad u fara badan oo fooq caqli ah ay ku soo iibsatay. haddaba 118 milyan oo lagu soo iibiyay Declan Rice ayaa markaasi waxa uu yiri bal iga hooda kooxda Arsenal ay waa idin guday lacagtan aniga markaasi ugu soo gadateen. qiimaha ay u dhigantana waxa ay ahayd in markaasi Real Madrid aan dhulka ku jiido 2 bulusoon oo cajiib ah ayaa markaasi ka dhaliyay. sidoo kalena Michael Merino oo ah noobaha markaasi sida ku meel gaarka ah ay u ciyaarsiinayeen kooxda Arsenal tababare Michael Arteta oo asigu hore noo baray ninka la yiraahdo Kai Havertz inuu markaas number 9 nooga dhigay. haddaba Michael Merino ayuu asna bulshada baray dadka caalamkana oo baray inuu markaasi dheeli karo. Michael Merino ayaa 6 gool oo dhaliyay tan iyo February 15keeda ilaa iyo haatan waqtigii loo magacaabay ama Arteta oo ka dhigtay number 9 ama gool dhalihiisa. 6 gool ayuu marayaa oo ay ka mid tahay goosha oo markaasi ka dhaliyay kooxda Real Madrid, halkaana Real Madrid lagu soo dubtay 3-0 ayadoo ay markaasi u muuqato in Real Madrid ay comeback oo macquul ah ay sameyn kareen markii la tago Bernabeu Stadium walow kubaddu ay tahay mid cajiibiska ah wax walbana laga filan karo oo cad iyo madow ah ay kubaddu ay tahay. haddaba sidoo kale waxa ayadana sidoo kale ciyaaray isla habeenkii Talaadada ahayd kooxda Bayern Munich iyo weliba kooxda Inter Milan oo Bayern Munich ay gurigeeda joogto 2-1 lagu soo dubtay. Inter Milan ayaa 2-1 ku soo badisay marka lugta labaad markii loo laabto San Siro ee dalkaasi Italy. marka muu malayn karaysid in Bayern Munich ay iyadu comeback wanaagsan ama comeback wali ah ay ku sameyn karto kooxda Inter Milan. Inter Milan championka markii ay dheelayso waa kooxaha ugu adag ee saadaalintana markaasi ku guuleysan kara hadii ay final u soo baxaan. haddaba sidee u aragtaa
kulamadaasi natiijada kasoo baxa ayadiga hoos inoogu reeb fakirkaaga iyo weliba qaybta commentiga. haddaba sidoo kale xalay ayaa waxaa ciyaareen kooxda Barcelona iyo Borussia Dortmund oo in badan la isdhahayay Borussia Dortmund maadaama sanadka hore ay garaacday kooxda Barcelona waa ay markaasi qalqal gelin kartaa, laakiin 4-0 ayaa lagu garaacay kooxda Borussia Dortmund. sidoo kale Aston Villa iyo PSG ayaa markaasi dheeleen, PSG ayaa markaas 3-1 ku badisay oo ciyaartaasina waa ciyaar furan, laakiin markii la tago dalkaasi England kulay waxba iska bedeli doona haddii ay Aston Villa la timaado 2-0. ciyaartu waxay noqon doontaa mid barbara ah oo u baahan doonto 30 daqiiqo oo dheeri ah ciyaarta in lagu daro haddii 90 daqiiqo ay kusoo idlaato 2-0. haddaba kooxaha markaasi soo baxay oo hadda lugta hore soo badiyay ma awoodi karaan inay markaa ayaguna soo badiyaan lugta dambe ee kooxahaasi markaasi haddii ay suurtagal noqotana ma awoodi karaan inay markaasi ay sii badiyaan oo ay adkeystaan ama difaac ay xirtaan si aan looga dhalin goolal aad u fara badan oo kooxdu markaasi ay noqoto mid u soo baxda semifinalka. haddaba kulamada bugbaxa ayaa waxaa muuqata kooxda Real Madrid iyo wala Borussia Dortmund inay markaasi ay ku liidan yihiin xaqiiqdii markii laga hadlo. Borussia Dortmund 4-0 ayaa la gaarsiiyay, ma awoodi karto inay 5-0 ay markaasi kooxda Barcelona ay ka dhaliso ama 4-0 ay ka dhaliso kooxda Barcelona lugta labaad, taasi oo macquul ka dhigi karta inay 30 daqiiqo oo dheeraad ah lagu daro haddii 90 ay ku dhamaato 4-0. haddaba ma suuragali kartaa taasi waxay markaasi noqon doontaa mid aan inta badan dhici kareynin oo saadaashu ay sheegaysaa in xitaa haddii ay dhacdo Borussia Dortmund ay badiso ay ku badin karto 1-0 2-0 oo tusaale ahaan, laakiin lugtii hore ayaa laga soo shaqaystay oo dadaal fara badan ayaa markaasi la Barcelona muujisay. haddaba sidoo kale Real Madrid iyaduna gurigeeda Bernabeu Stadium ee dalkaasi Spain markii la tago ay Arsenal ugu tagto martihaan ma awoodi kartaa inay markaas Real Madrid ay dhaliso 4-0 si ay ciyaarta ugu badiso 90 daqiiqo ama 3-0 markaasi suurtagal ma noqon kartaa inay Real Madrid ay dhaliso maadaama la leeyahay Vinicius Junior iyo Rodrigo iyo Mbappe intaba ay kulankii hore ay dheelayeen lana arkay flop sida ay ugu noqdeen garoonka markay ay soo gudagaleen ay awood u weeyeen in markaasi ay taabtaan kubadda maadaama Vinicius Junior oo markaasi ciyaaryahanka Timber jeebka gashtay oo yiri iga dhaqaaqi meedid ani unba ka dhaqaaqayo oo aagaaga isku dayayo inaa markaasi kooxdeeda ka caawiyo inay wax dhaliso. sidoo kale Luis Skelly oo markaasi si weyn jeebka u gashtay cunuga la yiraahdo Rodrigo, ciyaaryahankaas ayaa markaasi jeebka gashtay. waa sida dareemaysa dhexdana waxa Thomas Partey iyo waliba Declan Rice ayaa iska maamulanayeen oo Camavinga iyo waxay kala wareegeen ninka la yiraahdo Rodrigo adehe ninka la yiraahdo Luka Modric. walow waqti dambe la bedelay Camavinga oo red card qaatay, laakiin yellow ayuu hore u qaatay jaalaasna waxa uu markaasi micno la ahaa in lugta labaad Bernabeu uusan ciyaari kareenin. saasay tahayna dhamaadkii ciyaarta 94 ayuu wuxuu qaatay red card ama kaarka huruudka sida loo yaqaano casaanka ayuu qaatay. taana hal kulan ayuu maqnaanayaa oo macna kulankii oo jaalaha ku maqnaan lahaayo redkin hadana ku sii maqnaaday haddii aan ganax loogu darin. saaxiibayaal waxaan leeyahay waa saaxiibkina Maxamed Abuukar Baariyo. haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka, sii share garay, like iyo comment-gana hanaga ilaawin, waa qayb kamid ah dhiirigelinta aad anaga ana siinaysaan. aad baad mahadsantihiin. YouTube-kana follow inoo dheh, noo subscribe gareeya, page-kana follow gareeya. inta dib ugu kulmi doono barnaamij caynkan oo kale waxaa idin leenahay waa saaxiibkina Maxamed Abuukar Baariyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.